hadduu markii MT4 soo furatay oo sidan kaan noqday waiting for update ku leeyahay waxaa sameynaysa Google tag MT4 brokerka ka furatay iyo habna inaan gudaha u tagno ana hadda waxaan ka furtay waa just market aan qoraya waxaan leeyahay just market login mar walba brokerka soo hubso aniga just market weeye Google ka imaanaysa waxaan leeyahay just market login marka halkaasna account ka soo suubsanaya marka meesha account ka soo subsado waxaan gelinayaa Gmail yaan gelinayaa Gmailkayga password aan sameysanayaa kadib markaas ka bacdi yaan soo noqonayaa waxaad imaanaysaa Google gudaha markuu ku soo guriyo meeshan waa client login meesha waxa weeye qofka macnaha macaamilku ka galay mar walba halkaan ay imaanaysaa yaan lagu qaldin marka mar walba meesha demo ku qoro demo marka ku qortid add new account aan leedahay meesha ugu horeyso ee barmud garana waa MT5 iska fiiri midka furanaysa iska fiiri mar walba MT5 macnaha MT5 samaysatid MT4 ma galay meeshaas marka hadda arkaysa MT4 gaan dooranayaa halkaasaan account waxaan leeyahay add new account oo demo ah waad ku dhufanaysaa meeshaas markaysa try demo leedahay qaarkood waxay ku leeyihiin open new demo waad leedahay hadba wixii ku dhahaan baad gelinaysaa meeshaas halkaan gashanaysaa marka waxa dhamaalo USD iyo lacag macnaha rabtay demo hadday 50 kun tahay 20 kun tahay 10 kun tahay 5 kun tahay halkaan gashanaysaa password aan gashanayna passwordkan waa midka marka hore account-ka samaysanayso Gmail-ka aad ku samaysanayso weeye kaasa gashanaysaa okay hadda waxaan leenahay open new account account-taas noogu furan already marka waxaynu qaadanayna waxa weeye login-kan qaadanayna waa login ku tusaafirsiya login midkaan qaadanayna markii account ku soo furmo login-ka midka meesha ku qoran weeye markaysa meesha ku qoran magaceeda standard meesha calaamadda hash ka bilaabanayso weeye MT4 10000 USD marka kaasaad copy ku qaadaysaa mar haddaa qaaday waa soo noqonaysaa MT4 ku soo noqonaysaa meesha waiting for update ku dhahayay waxaan waa iska xiraysaa halkan haday account ku qoran tahay ku shaqeynaysaa account ku dhufanaysaa haddii account ay ku shaqeynaynin qaybta koro meesha koro tagaysaa hadda account ima shaqeynayso arkaysaa meesha account ma shaqeynayso halkan laakiin aad ku shaqeynaysaa laga yaabaa haddii shaqeyn meeshan qaybta koro ku dhufo meesha ku qoranta file aan ku dhufanayaa halkaas login to existing markaysaa login to existing aan ku dhufanayaa marka meeshan ku dhufatid jag baan leeyahay asaga ii soo bixinaa marka meeshan gelin lahaa login-ka kii marka halkan waxaan gelinayaa meeshan kii aan soo koobiyey meeshan Gmail ma gelinaysa kii aan soo koobiyey aan paste ku leeyahay password maxaan gelinayaa passwordka kow aan ku samaystay passwordkii marka hore aan samaysanayay meesha gelinayaa markaas inuu demo yahay kadib login baan leeyahay halkaas markaad login dhahdid oo jag ku siisid weli waxaan ku tusayaa waa u sugaysaa marka ma taabanaysid farma saaraysid waqti baa siinaysaa waa u kaadinaysaa ilaa asaga uu iska keeno asaga iska keeni doono waqti buu yara qaadan doonaa waa u kaadinaysaa ilaa intuu waqti ka qaadanayo waad u aamusaysaa markaysaa qam marka markaas mal cod baa maqlaysaa meeshaas haddana codka meesha ka xiran yahay cod baa maqlaysaa everything markaas waa diyaar markuu iskeeno waa arkaysaa hadda soo jiidaysaa drag and drop waa soo jiidaysaa waxaa ku dhex daynaysaa shaashada kusii daynaysaa markaas meesha common baad tegaysaa qab halkaas marka hadda halkaa markaa maraysid waxaad ku noqonaysaa video hore sida setupka loo sameynayay kaasa wax walba ku siinaayo midaan dhowr jeer ay soo noqotay dhalinyarada macnaha MT5 ka isticmaala balka MT5 ma shaqeeyo MT4 buu ku shaqeeyaa haddii adiga marka MT5 uu kaa yahay MT4 buu macnaha soo degso ku dhex isticmaal sida trading view camal u isticmaal trade ka qaado marka analyze meesha markuu kugu sameeyo MT5 ka trade kaada ku qaado halkaasna waxay noqonaysaa meeshii aad trade ka sameyn lahayd waayo